mataqaanaa jaamacad ii dhigata baa waxyaabaha aniga aan dhibaatada haysto waxa kamid ah xataa curadkayga anigu aan dhalay oo guriga joogta baxtaa heer waxa la gaaray in la daba guro la gaaray cid abti iyo awow iyo adeer iyo cid ka kululaatay iyo cid wax iga tir midna aysan jirin heerkaas xataa waa la i gaarsiiyey markii dambana gabadhaydii uur lahaan xataa arkay oo xaamil ah guriga ii dhex fadhida إنكار قبي حينيها مارك وجوه حينيها مارك وجوه نكان أوجدان أفري لا تصع كهر أنا أقول حقوق دي سعود دوداي أيام مقال كسم بيه نكان تاريخ دي أيام نجد بجينيا مركب وور السنة نكان جوري كمان مقال نكان تاريخ دي سا مجلس يسوي حالي هذا عبد الله جراد بطول ونيوس عليا عبد الله جراد بطول بالله وحو كل شيء بقاله وحو مقدش صوغلي مر هore ayuu soo galay Muqdisho ninkan wuxuu kamid ahaa dadkii qabliyaashaha dadkii mooryaantaha ee Muqdisho dadka ku dhici jiray ninkan wuxuu iskaga dambeeyay dawladihii soo maray ee ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee waliba hadda ugu dambeysay dawladda hadda jirtay oo madaxweynuhu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaas wuxuu kamid ahaa askari halba nooc isku soo bedelay ayuu kamid ahaa si walba ay noqoto Cabdullaahi Garaad Batuul maantay wuxuu sheeganayay inay guri ka maqan tahay guriga ka maqan tahay ma asaga leh sideeba uga maqan tahay yaa ka qaatay guriga xagee buu ka keenay intaas ayaa rabaa inaan iga daba geeyo cadeymo badan ayaan ka soo helay ninkan marka muuqaal ka sameeyay waxa la soo xariiray dad aad u fara badan ee waliba kamid yihiin asaga ehelkiisa ninkan waxa dalka dibadiisa geeyay ninka leeyahay madaxweynihii hore Shariif Sheekh Ahmed ayaa geeyay waddanka Uganda waxa loo qaaday in laga soo dhigo sarkaal buuxa waxa lagu soo culiyay Muqdisho wuxuu ka shaqeynayay Muqdisho waxa yimaaday asagoo wali sarkaal Xasan Sheekh Ahmed Xasan Sheekh Ahmed wuxuu siiyay asaga iyo nin kale oo ogaadeena dhul dawladii hore Soomaaliya iska lahayd ayuu siiyay Xasan Sheekh Ahmed waliba masin kaliya wuxuu uga dhisay midkiiba 2 qol ayuu uga dhisay ninkii 2 qol la siiyay asaga isku meesha waa guri isku dhagan ayaa la siiyay oo sii kala jeeda oo midkiiba 2 qol ah ninkii sarkaalka asagana ahaa uu dhintay oo ogaadeen magaciisa ma hayo waa la soo xaqiijin waay ninkii asaga uu dhintay ninkan baa gurigii 2 qol ee ninka ka dhintay kiisi daarad weyn u samaysay oo habaystay oo wada yeeshay ninkan gurigiisa wuxuu dajiyay 4 xaas uu guursaday midii ugu yareed 4 xaas uu guursaday mid waxay dhashay 10 cunug midna waxay u dhashay 6 cunug midna waxay u dhashay 4 cunug midda gurigan degan waxay u dhashay hal gabar hadalkay si fiican u dhageysta midda gurigan u degan uu leeyahay waa iga maqan yahay waxay u dhashay hal gabar 22 cunug buu dhalay caruurtiisu waxay ku noolyihiin magaalada Muqdisho masawiradoona lama wadaagi karo ee laakiin qaar kamid aan hayaa waa dhalinyaro waaweyn waa dad waaweyn oo wax ka barta jaamacadaha Muqdisho ku nool magaalada Muqdisho waa dad edeb leh waa dad wanaagsan waa dad oo maanta magacooda iyo sharaftooda uu ku dheelaayo ninkan wuxuu kamid ahaa ciidanka maanta jira ee Soomaaliya waliba saraakiisha saanisha ninkan sarkaalnimo ayaa la soo baray ayuu kamid ahaa ninkan si walba ay noqoto ciidanka hadda Soomaaliya markii madaxweyne Farmaajo ciidanka uu soo aruursaday musharaxiintii ee badbaado qaran ayuu ka mid noqday oo ciidanka Soomaaliya waa ka tagay wuxuu aaday badbaado qaran maadaama ninkan ahaa ninay isku dhow yihiin madaxdii hore Soomaaliya soo martay midna ka dhigay sarkaal midna guri iyo boos siiyay ayaga ayuu u heeliyay ninkan markii hore u fiicnaa hadal baan iga iloobay dadkiisa ehelkiisa iyo walaalihiisa ilmaadareed wuxuu dhigi jiray anigu waxa nin hawiya ninkan wuxuu nin ku dhaxnool beesha hawiye iyo magaalada Muqdisho 4 xaas uu soo guursadayna 4 waxay yihiin beesha hawiye ninkan markuu ku biiray ciidankii badbaado qaran dawladda lacagtiiba ka goosatay waa mid hadda buuqa keentay hadda ka hor waa maqli doontaan qoraalada hoos lagu soo qoray waa arki doontaan sanad koor iyo sanad bar koor waxay tahay ma garanayo guriga uu hadda leeyahay waa iga maqan yahay ee dawladdii hore ay siisay wuxuu rabay inuu iibiyo xaaskiisa yar ee degan ayaa ka diiday way isku dhaceen dhaawac buu u geystay
waa la xiray markii la xiray waxaa soo daayey ninkii axmed madoobe ka dhoofin jiray kismaayo ee la dhihi jiray axmed taajir ayaa soo daayay axmed taajirkii maaha iyo nin la yidhaaho ina bogmadow oo haysta ciidanka 43aad mise qaybta 43aad ee jubbooyinka ninka haysta ee sarkaalka ugu sarreeyo ee ciidanka dhan haysto ayaa soo daayay ninka markii waxaan mar hore lama soo daynaa weliba hadda markay dhacaysay ciidanka badbaado qaran maalmo ka hor bilo ka hor ayaa la soo daayay markay sidaasay noqotay weliba ciidankiisa weli ka sii mid yahay oo lacagtiisa weli uu qaato ayaa hadda wuxuu ku biiray ciidankii badbaado qaran ciidankii badbaado qaran dowladda Soomaaliya qaar ka mid ah lacagta waa laga jaray intaan ognahay iyo in laga wada jaray ma ogi dadkii laga jaray ayuu ka mid yahay ninka markii soo food saartay lacag la'aan ninkan waxaa la sheegay inuu qabrada cabo inuu maartay ninkan wax walba oo xun uu sameeyo inuu qayiro inuu hadda oo been sheegay beenta waxa taa ni sheegaya waxaas oo dhan inuu sameeyo li soo sheegay ninkan familkiisa ciidiisa waxba kama qoran waa waxa loo waayay odayaal ana u dhahay war ogaadeenkii u hadli jiray maxay tahay muxuu dahar calis ugu hadlaya maxaa loogu hadli waayay waa nin la yaqaano oo familkiisa ogyiin wuxuu yaa iska hadla guriga uu xaaskiisa ku dhaawacay hadda markay soo food saartay lacag la'aan dadkii hore ugu balqaaday guriga ayuu u tagay waxay yiraahdeen haddaa guriga nooga saartay reerkaaga waan kaa iibsanaynaa xaaskiisii uu horay u dhibaato u geysay oo iska cafisay weliba oo weli ay isqabaan ayuu haddana wuxuu u qaaday gacan walaalaheed ayada iyo ilmaadaradii ayaa isaga bugoyey waa jugta ka muuqata isbitaal buu aaday isbitaal markuu aaday ayuu social media soo galay oo yiraahay waa la dilay gurigii waa laga haystaa gurigiisa cidna kama haysta xaaskiisa degan inuu iibsado rabaa guriga waxa siisay dawladdii hore ama sharci ha ku ahaado ama dambi ha ku ahaado waa dhul dawladeed laakiinse dawlad baa siisay si walba ay noqoto ninka social media markuu soo galay waxa hawada ku qabsaday oo ninkan hawada ka bartay daahir calasow khaasa waxaan u codsanayaa afayeenka beesha sacad daahir calasow iyo afayeenka jubbaland iyo puntland iyo gobolka banaadir yaquub siyaad si gaar ah inay arintayda u sheer gareeyaan daahir calasow wuxuu rabaa inuu hadda waraysto maalmaha soo socda arkaysaan hadduusan maanta waraysan berri iyo saadaba waraysan doonaa marka daahir calasow ninka leeyahay yacquub oo yidhaahdo waxaan ahaa afayeenka banaadir balwaan raggaasaa waxay intay lacag u direen waxay yidhaaheen hawsha badi oo lifeka badi oo hawsha ka sii waal ninkan waxayna u sheegeen inuu yidhaah caawin waxaan uga baahanahay xidig waxaan caawin uga baahanahay gabadhii carab saalax ee ka timaatay gobollada puntland xildhibaanada ka mid ah firimbi dadkaas wuxuu leeyahay kaalay caawiya waxay ku tusinaysaa mucaaradkii inuu dalbanayo xidig maxay tahay sababta uu dalbanayo xidig iyo nin loo diiday inuu jubbaland tago kii hadda loo diiday ma aha isku qaldinin nin kale oo isaga loo diiday jubbaland inuu tago oo la yidhaaha cabdi cali raage iyo xidig ayaa kursi isku haysta ee beesha ogaada leedahay beesha ogaadan ayaa dhihin reerka ugu soo hooseeya reer cali ee wada leeyihiin kursi isku haystaan marka ninkan mucaaradka ayaa soo diraya maadaama markii hore social media asagoo soo galay beenna ku soo galay inay og yihiin guriga wuxuu yahay cid kalena is u qayrinayn hadda waxay noqotay in asagii la isticmaalo daahir calasow iyo ayaa meesha ku jira iyo mucaaradka ayaa hadda asagii isticmaalayo waxaa la rabaa in la iskaga dhigo nin ogaadeena inay u hiilinayaan mucaaradkii oo guri muqdisho laga siinayo oo gurigiisa loo doodayo ayaa lagaaga dhigaya garabka qabanayna nin maartay ogaadeena guri muqdisho laguma diidi karo hawsha halkaas ayay ka socotaa waa inay fahantaan hawsha halkaas ka socotaa waan igu soo celinayaa hadda ka hor 8 bilood buu xirnaa waxaa soo daayay axmed taajir iyo ina bogmadow oo ciidanka 43aad mise qaybta 43aad ee gobolladooyinka jubbooyinka haysta ee dowladda Soomaaliya ayaa soo daayay xaaskiisa intuu dhibaato weyn geystay haddana waxaa dhaawacay xaaska walaaladeedii iyo ilmaadeerkeed oo ka celinayay inuu dilo rabo gurina xoog uga saaro gabadha uu leeyahay waa la kufsaday uur baa loo yeelay oo abtiyaasheeda kufsaday wuxuu rabaa wuxuu ka dacwoonayaa habargidil wuxuuna u dacwoonayaa habargidil waa been gabadha wiil mareexaana guursaday wiilkii mareexaanka raalli odagan ugama ahayn
dhibaato badan wiilkii u geystay iyo maartay jaaifeen wiilkii gabadhii waa u soo furay gabadhii uur leh guriga ayay ku nooshahay uurka si xalaal ku soo qaatay nin ayaana soo guursaday waa inaad ogaataan intaasaan iga tegayaa waxaan filayaa in intii muhiimkeeda aan soo qaatay saan u soo gaabiyo muuqaalka dheer ma wanaagsana aad baad u mahadsantihiin soomaaliya ha noolaato dadka muqdisho degan jaaifo badan baa loo geystaa dad aan guri cidna ka haysanin ayaad saa dhibaato ugu geysanaysaa intaan beentooda la ogeyn ama beentooda ay fakato bal ka war intay leegyihiin dadka muqdisho degan waa dad dhibbanaa intooda badan waa dad xalaal qudato ah waa dad ilaahay wada ka cabsada dadka muqdisho degan waxaanu leenahay ka raallahada war walba iyo been walba oo ni soo gaartaa xag shidan bay ka ahaatay soomaaliya ha noolaato